gudoomiyaha degmada luuq ee gobolka Gedo Axmed Bulla Gareed ayaa maanta kulan isxoguraysi ah waxa uu la qaatay ururka haweenka degmada luuq waxaana gudoomiyaha kulanka ku wehelinayay madaxa arrimaha bulshada degmada iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee degmada luuq. gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee maamulka degmada luuq ayaa sheegay in haweenka degmada luuq ay ula shaqeeyaan maamulka degmada si cadaalad ku dheehan tahay. waxba kuma tar xoogooda iyo maalkooda iyo naftooda waxay noola shaqeeyeen si maxalliga cadaaladda si ay maxalliga hufnaan ku jirtay noola shaqeeyeen sidaa darteed marka waxaan ka codsanaynaa maadaama adiga maanta ilaahay ku waafajiyay in meeshii annaga aan dhignay oo wax qabasho la'aanta ahayd inaad ka sii qaadday annagana garab aan kugu siino hooyooyinkaana awalan aad ka dhigtid intaasaan kaa codsanaynaa gudoomiyaha degmada luuq mudane Axmed Bulla Gareed ayaa sheegay in ujeedka kulanka uu yahay sidii loo tayeyn lahaa ururka haweenka degmada luuq isla markaana ay wada shaqeyn lahaayeen ururka haweenka degmada iyo sidoo kale maamulka degmada luuq. luuq marka la yiraahdo waa magaalo aad qadiimi u ah maamooyinkii soo halgamay oo hooyooyinka Soomaaliya ahaana magaalooyinka ka yimaadeen hadda marka dib taariikhda loo raaco waxay ka yimaadeen magaalada luuq ay ka yimaadeen marka aad baan ugu faraxsanahay inaan kulanno warbixinta gudoomiye ku-xigeenka hadda uu sheegayna waa wax jira waay hooyo markii la yiraahdo ilaahay ha barakeeyo dhibaatada iyo dhibka iyo qoyska wuxuu ku dhacaya iyadu waana lafdhabarkii waay waana run xaquuqdoodana inta badan ma helaan annagu marka waxaan rajaynaynaa insha allahu sidii gudoomiyaha uu sheegay xaquuqdii hooyo haddii ilaah yidhaahdo bal wixii aan kari karna inaan samayno insha allahu tacaala waxaa farxad kale noo ah maanta saakay in hooyooyinkii maasha allah gurigoodii oo qiimo badan aan maanta ku shirayno oo aan fadhino iyadana guul waaye anigu marka wax shirkanaga saako ku saabsay waxa weeye inaan kulankaas maadaama magaaladii aan imid magaaladii haddii hooyooyinka wada shaqayn jirnayna aad haydeen waxaan rabaa marka inaan waa qasab inaan kulanno waa qasab inaan isu imaanno waa muhiim marka inaan isweydaarsano wixii jira si aan u xallino waxaad la socotaan oo uu qiraya hadda gudoomiye ku-xigeenka annaan xoogaal u ah dowladda Soomaaliya gabdhihii soo dhaweeyey oo u taagnaa inaad haydeen xilligii hadda annaga ay imaanayeen ciidamada Soomaaliyeed gabdhihii dhexda u xirtay oo inta xoolahooda siinayay oo gacmo furan ku soo dhaweeyey oo biyaha ku dagooday inaad haydeen qodobka labaad oo aan rabo kulankanagana kaasoo ahaa midka saddexaadna waxaa weeye degmadii haddii anigaan imid hooyo lagaba maarmo waxaan ka codsanayaa inaan wada shaqayno insha allah haddii ilaahay oo aan ka shaqayno arrimihii bulshada iyo doorkiinni maamulkana aad gacan siisaan annagana wixii gacan aan siino haddii ilaahay yidhaahdo maanta ilaahay baa mahadle waxaan ogaa waqti ay xun tahay gabdhaha haddana hortayda ka muuqdo waqti ay xun tahay baan soo wada shaqeey maanta oo marka dowlad haysano ilaahay baa mahadle waad aragtaan maalinkaan wada shaqaynayna guryahaan ma jiro marwaxadahan ma jiro waxaan ma jiro laakiin maanta ilaahay baa mahadle wax ka sii u siyaadsan inaan helana waa rajaynayna oo mashaariica hooyooyinka ku saabsan waxaan rabaa marka in hooyooyinka hadda nidaam baad leedihiin barnaamijkiina waad dhisateen maamul cusub baad samaysateen aad baan ugu faraxsan waana soo dhawaynayaa maamulkaas inaan la shaqeeyo hooyooyinkaan la shaqeeyo wixii caqabadahoo jirana insha allah oo hooyada dhexdeeda ana insha allah inaan dhamayno haddii ilaahay yiraahdo haddaysan jirin lamaba jiraan wixii maamulka ay iska jiro waxaasoo hooyo doorka ilahayd iyo maamul doorka ilahayd inaan isku kaashano
yaan rabaa insha allahu tacaala. dhinaca kale qaar ka mid ah ururka haweenka degmada luuq oo heerkaasi gudoomiyaha ururka haweenka degmada luuq ayaa dhankooda soo dhoweeyey maamulka degmada luuq iyagoo sheegay inay si wada jira ula shaqayn doonaan gudoomiyaha cusub ee degmada luuq Axmed Buule waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad annaga haddaan nahay gabdhihii luuq waan ku soo dhaweynay soo dhaweyntaada duurkii waan kugu soo dhaweynay gudaha degmadana waan kugu soo dhaweynaynaa mahadcelin fara badan baan ku haynaa aad baan kugu mahadcelinaynaa waxaan filayaa in si wanaagsan aadna aad u sii shaqayn doonto aad ka shaqayn doonto horumarka deegaanka kan bulshada kan gobolka kan ilaa heer state in wanaag aad ka taxday ee degmada luuq inuu gaari doono waan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo annagana soo dhaweyn ballaaran baan ku haynaa kalsooni fara badan baan ku haynaa gudoomiyahanagii baa tahay aad baan kula shaqaynaynaa insha allah la shaqaynaynaa inaan la shaqayno gacmaha u dhigno sara u qaadno degmada u shaqayno dawladda u shaqayno ayaa go'aanka naga waa naga go'an tahay inaan hiil iyo hooba garab istaagno waa naga go'an tahay in aan 24 saac soo jeed hadduu sameeyo soo jeed la sameeyo oo Axmedow Buule heesa waliga gadaan amaari oo gucaadki iyo ruuxlaha waliga gaagixinin oo gucaadki iyo ruuxlaha waliga gaagixinin adduunya waa galino xaguuga yaxka amagaan adduunya waa